halkan waa ka wararka waxay ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona beesha caalamka oo bedelaysa mid kamid ah heshiisyadii lagu gaaray teendhada Afisyoon ee Muqdisho beesha waa isla oo ka hortimid saami qaybsiga baarlamaanka Soomaaliya billa Soomaaliya oo faragelin aad u xoogan ku haysa doorashada beelaha banaadiriga iyo muran ka taagan arrintaasi maamulka Puntland oo ka warbixiyay sargaal ku xukunaa dil toogasho oo xabsi ka baxsaday kooxda TPLF oo ku dhawaaqday xabad joojin laga hirgelinayo gobolka Tigray ee Itoobiya qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aanu soo booqato subscribe inoo saar YouTube-ka muuqaalkana like saar asxaabtaadana u share galay si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid aan u yeelano waagaag haddii aynu ku bilowno beesha caalamka ayaa waxa ay doonaysaa inay bedesho mid kamid ah heshiisyadii lagu gaaray teendhada Afisyoon ee Muqdisho beesha caalamka ayaa waxay ka walaacsan tahay in doorasho ay ka dhici karto magaalada Baraawe oo kamid ah magaalooyinka loo asteeyay deegaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo dhawaan la filayo in la doorto ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegeen in xubno ka tirsan beesha caalamka ay qabaan in halis amni oo xooggan ay ka imaan karto haddii doorashada halkaas lagu qabto iyadoo suuragal ay tahay inay soo weeraraan dagaalyahanada Al-Shabaab oo halkaa meelo aan aad kaga fogeyn ku sugan Al-Shabaab ayaa waxay aad ugu xoogan yihiin deegaano u dhow magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana magaaladaasi ku sugan ciidamo aanan badnayn oo isugu jira Soomaali iyo AMISOM oo ay adkaan doonto in shabaabka iska caabiyaan haddii weeraro culus ay kaga yimaadaan dagaalyahanada Al-Shabaab Baraawe ayaa ah caasimadda rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo aanan maamulku ku shaqeynin oo uu degan yahay magaalada Baydhabo oo si ku meel gaar ah ugu shaqeeyo iyadoo ay ka mid tahay sababaha ay u tahay halista amni ee magaalada ka jirta xoog la helayo ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in laga fikirayo in magaaladaas lagu qaban doono doorasho ama la geyn doono ciidan xoogan oo AMISOM ah taas oo ay ugu baaqan doonaan qarashaad malaayiin ah haddii la go'aamiyo in Baraawe lagu qaban doorasho waxay fursad siin kartaa maamulada Jubbaland iyo Hirshabeelle oo horey u doonayay in doorashada ay ku qabtaan Garbaharri iyo magaalada kale ee Beledweyne balse halkaas laga diidan yahay kuwaas oo ku doodi kara in deegaan doorashadooda lagu wada kabo min hal magaalo ama laba magaalo balse aysan sax ahayn in maamulada si gaar ah loola macaamiltamo beesha caalamka ayaana waxay doonaysaa in la dhaqan geliyo qorshahaasi oo ay soo jeedisay ee ah in amni ahaan ay ka baqayaan in magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose aan lagu qaban karin wax doorasho ah beesha caalamka ayaa sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay waxay dadaal xoogan ku bixinaysay qaabkii loo soo afmeeri lahaa muranka dabada dheeraad ee hareeyay doorashada Soomaaliya iyagoo dhowr jeer dhaliilo kala duwan u jeediyay madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo isaguna sidoo kale golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee eedeymo kala duwan u jeedinayeen beesha caalamka ayaa waxa ay yihiin kuwa aad ula socda doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo gudaha waddanka Soomaaliya iyadoo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka dhankeeda ay ku eedeysay in faragelin ay ku hayso doorashada la filayay in ay ka dhacdo gudaha waddanka Soomaaliya bilihii la soo dhaafay balse hadda ayaa waxa la qorsheynayaa in 10ka bisha Oktoobar la soo gabagabeeyo doorashada waxaana markaa la dooran doonaa madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota hogaamin doona Soomaaliya beesha caalamka oo hadda badankoodii degan xerada Xalane ayaa waxay soo saaraan qoraallo isdaba joog ah oo ay kaga hadlayaan doorashada la filayo in ay ka dhacdo gudaha waddanka Soomaaliya iyagoo muddooyinkii ugu dambeeyay soo dhaweynayay dadaalada uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu ku bixinayo qaabkii doorasho wadar ogol ah oo si nabad ah ku dhacdo Soomaaliya ay kaga qabsoomi lahayd waxaana ra'iisul wasaaruhu muddooyinkii ugu dambeeyay uu waday dardargelin xoogan oo ku aadan qaabkii loo qaban lahaa doorasho lagu wada kalsoon yahay oo ka dhacda gudaha waddanka Soomaaliya taas oo kala ah midda xildhibaanada iyo midda kale ee aadka loo wada sugayo sanadkanna xiisaha goonida leh ee madaxweynaha waxaana la filayaa in 10ka bisha Oktoobar la doorto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ka oo 4 sano ee soo socota hogaamin doona Soomaaliya waxgaradka beesha Ibakar Gaab Macallin Dhiblaawe oo kamid ah beelaha wacaysle ee Abgaal Ismaan oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hor yimideen saami qaybsiga xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee beesha Ibakar Gaab Macallin Dhiblaawe cabashada ka qabto waxa ay deegaan doorashadoodu tahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug waxayna baaq u direen Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ah madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug waxgaradka beeshan ayaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo tan Galmudug waxa ay ka dalbadeen in aan lagu hungoobin in la doodsado kuraas iyagu xaq u leeyihiin war murtiyeed ka soo baxay beesha Ibakar Gaab Macallin Dhiblaawe oo lagu shaaciyay shirkaasi jihaad ayaa waxa lagu soo bandhigay cabashada ay beesha ku qabto hanaanka loo qabanayo kuraastaas ugu darsan beesha waa isla maamulka Galmudug waxgaradka beeshan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in beesha waa isla ay dalbatay in si cadaalad ah sanadkan loo qaybiyo kuraasta maadaama ay soo dul qaadanayeen muddo dheer oo ay sheegeen
inay ka maqan yihiin kuraas ay xaq u leeyihiin. maamulka galmudug ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada lagu xanto inay aad ugu dhow yihiin filla Soomaaliya, waxaana la filayaa in maamulka galmudug maalmaha soo socda xildhibaanada la soo dooranayo ay noqdaan kuwo aad ugu dhow filla Soomaaliya iyadoo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug isla markaana uu aad ugu dhow yahay madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaana sidoo kale waxa ay yihiin kuwa aad ugu dhow filla Soomaaliya, waxaana la filayaa in doorashada xildhibaanada ka imaanaya saddexdaas maamul dhowaan la shaaciyo iyadoo filla Soomaaliya ay doonayso in xildhibaanadaas ay gacanta ku dhigto. filla Soomaaliya ayaa faragelin aad u xoogan waxa ay ku haysaa doorashada beelaha banaadiriga ah iyadoo muran uu ka taagan yahay arrintaasi. waxaa dib u dhacay shalay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada beelaha banaadiriga ah, waxaana dadka agdhadhow beelahaas iyagu ay sheegeen in dib u dhaca doorashadaas ku yimid uu yahay kadib markii muran iyo buuq uu hareeyay doorashadooda. xogo la helayo ayaa waxay sheegayaan in dib u dhacaasi uu yimid kadib markii doorashada guddiga ay soo farageliyeen saraakiil ka socday madaxtooyada Soomaaliya iyaga oo sheegay inay wataan shakhsi dhinacooda ah oo ay doonayaan in loo doorto gudoomiyaha. odayaal iyo waxgarad ayaa ka codsaday guddiga farsamada ee ra'iisul wasaaruhu u magacaabay in ay soo farageliyaan arrintan beelaha banaadiriga ah loona madax banneeyo in doorashadooda iyagu ay qabsan karaan oo keliya isla markaana aan wax faragelin ah lagu samaynin. filla Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay wado shakhsiyaad aananba ka soo jeedin beelahan banaadiriga ah iyada oo doonaysa in talada ay kala wareegto beelaha xaqa u leh ee banaadiriga kuwa oo dega gobolka Banaadir ama magaalada caasimadda ee Muqdisho. sidoo kale waxaa inta badan la doortay labadii maalin ee la soo dhaafay guddiyada doorashada maamul goboleedyada dalka kuwa oo la sheegay in filla Soomaaliya ay ku yeelatay saameyn xoog leh. maamulka Puntland oo shalay doorashadooda ku qabsaday gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaana waxa ay yihiin maamulka kaliya ee ilaa iyo hadda aan la ogeyn in faragelin ay ku leedahay filla Soomaaliya iyadoo maamulada galmudug iyo Koonfur Galbeed Muqdisho ay ku qabsadeen doorashada lana xusay in filla Soomaaliya ay faragelin aad u xoogan ay ku leedahay doorashadooda. maanta ayaa waxaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada guddoonka maamulaya doorashada beelaha banaadiriga kuwa oo xitaa kuraas badan aanan ka lahayn golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo isha lagu wada hayo shakhsiyaadka la dooran doono ayaa hadda waxa ay yihiin kuwa aan saameyn muuqato ku lahayn xildhibaanada iyo doorashada kale ee midda madaxweynaha Soomaaliya, waxaana hadda iyagu ay yihiin kuwa lagu faragelinayo doorashada guddiga maamulaya doorashadooda. filla Soomaaliya ayaa waxaa lagu xantaa inay aad u farageliso qabashada doorashada guddoonka iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiyada doorashooyinka ee maamul goboleedyada dalka, waxaana sidoo kale la filayaa in maamulka Jubbaland maanta ay shaaciyaan in iyaguna ay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen. taliska ciidanka asluubta ee dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahiyay sida uu u baxsaday Axmed Cabdi Jaamac oo ku xirnaa xabsiga magaalada Qardho ee gobolka Karkaar kuna xukunaa dil toogasho ah. afhayeenka ciidamada asluubta oo lagu magacaabo gaashaanle Cabdirasaaq Maxamuud Xiisi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in maxbuuskaasi ay soo wajahday xaalad caafimaad oo u baahday daryeel isla markaana uu ka baxsan xabsiga kadibna markii la waday uu baxsaday. Xirsi ayaa sidoo kale waxa uu xusay in tuhun ay ka qabaan saraakiil iyo ciidankii loo xil saaray soo daaweyntiisa maxbuuska fakaday isaga oo tilmaamay in ay dayacaad sameeyeen. xukumanay Axmed Cabdi Jaamac oo u xirnaa dil toogasho ayaa sidoo kale arrimo caafimaad waxaa loogu qaaday cisbitaalka guud si loo daweeyo. saraakiil ayaana loo xil saaray hawshooda balse way garab mareen oo afka ayay la galeen ciidan hubaysan oo diyaarsanaa. sidoo kale waxa uu intaas ku daray in la xiray saraakiishii loo xil saaray caafimaadka maxbuuska sidoo kalena lagu raad joogo mid ka mid ah askartii waday maxbuuska oo maqan. waxa uu sheegay in sidoo kale ay suuragal tahay inay dhici karto in qaarkood ay xiriir la leeyihiin raggaas hubaysan, waxaanu sidoo kale uu sheegay inuu maqan yahay mid ka mid ah ciidamadii maxbuuska waday balse ay iyagu hadda soo xireen saraakiishii mas'uulka looga dhigay inay cisbitaal geeyaan. arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso ay ka baxsadeen qaar ka mid ah maxaabiistii ku jirtay kadib markii weerar ay ku qaadeen xubno la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab oo iyagu beegsaday xabsigaasi gaarka ah. sidoo kale ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaana markii xabsiga ay ka baxsadeen tiradaasi maxaabiista ah waxa iyagu ay sameeyeen howlgallo kala duwan kuwa oo inta badan ka dhacay dhulka buuraha ah ee deegaanada maamulka Puntland, waxaana suura gashay in inta badanba gacanta lagu soo dhigo raggaasi baxsaday balse ciidamada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay fulinayeen
howlgallo kala duwan oo lagu baacsanayo dagaalyahanada al-shabaab iyo kooxda daacish oo iyagu weli ku sugan deegaanada maamulka Puntland dhulka buuraha ah ee ku yaala. Ciidamada BNPF iyo ciidamada BSF ayaana sare waxay u qaadayaan sida xogo hordhac ay tilmaamayaan howlgallada kala duwan ay ka fulinayaan deegaanada maamulkaas, waxaana hadda xogo hordhac ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ay ku raad joogaan sargaalkii ka baxsaday xabsiga, waxayna sidoo kale ciidamadu ay ku raad joogaan askarigii loo xil saaray in maxbuuskaas ay geeyaan goob caafimaad. Kooxda TPLF ee ka dagaalanta gudaha dalkaasi Itoobiya ayaa waxay ogolaatay in xabad joojin halkaasi laga hirgeliyo. Taliyaha xoogagga Tigray oo dhawaan la wareegay magaalada Makalle ayaa ku baaqay xabad joojin heshiis lagu yahay iyo xal siyaasadeed in laga gaaro colaadda gobolkaasi ka aloorsan. Waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dowladda Itoobiya ay ku guuleysan weyday dagaalka, haatana la joogo xilligii ay dhinacyadu geli lahaayeen wada xaajood ku aadan xabad joojin buuxda. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo isniintii khudbad u jeediyay baarlamaanka Itoobiya ayaa sheegay in aan looga adkaan dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray, balse taa beddelkeeda la weeqay awoodda kooxda TPLF oo iyagu hadda jooga magaalada Makalle ee dalkaasi Itoobiya. TPLF ayaa horey ugu gacan sayrtay xabad joojin dhinac ah oo ay ku dhawaaqday xukuumadda Addis Ababa kadib markii ciidamadeedu ay ka baxeen magaalada Makalle. Jananka ayaa xukuumadda Abiy Ahmed waxa uu ku eedeeyay inay diidan tahay in gargaar la gaarsiiyo magaalada Makalle iyo deegaanada kale ee gobolka Tigray, eedeymahaas oo ay beenisay Addis Ababa. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad na soo booqato, subscribe noo saar oo gambaleelka furo, asxaabtaadana u sheer garay.